wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay weeliyaan maamulka heer gobol iyo heer degmada Gebilay iyo xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Gebilay xarunta gobolka Gebilay si diiran ugu soo dhaweeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo dalka dib ugu soo laabtay dadweynaha reer Gebilay oo socday in ka badan 8 kiiloomitir duleedka magaalada Gebilay isla markaasina watay farda aad u tiro badan iyo waliba calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba astaanta gobolka Gebilay ku caanka yahay iyo waliba guud ahaan agabka qodaalka gobolka Gebilay ku caan yahay iyo guud ahaan professor ko isagu soo lugay duleedka magaalada Gebilay ay dadweynuhu soo galbiyeen isla markaasina u soo galbiyeen runta jaamacadda ee magaalada Gebilay intii aan la soo gaarin jaamacadda Timacadda ee magaalada Gebilay professorka iyo mas'uuliyiinta warkaya wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland ay socdeen duleedka magaalada Gebilay waxa goor kasta uu soo gaaro Professor Axmed Ismaaciil Samatar lagu soo dhaweynaya caleemo qoyan taasi oo dadweynaha reer Gebilay wajigooda kaga muuqatay kalgacal iyo soo dhaweyn ay ku soo dhaweynayaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo wajigiisa ay ka muuqatay qiiraadu waxaan isla markaasina wajigiisa ka socotay ilmo ayaa isagu dadweynaha u gacan taagay isla markaasina Ilaahay ku shukrinayay ku soo laabashada ku soo laabtay deegaanka ku dhashay ee magaalada Gebilay munaasabad ballaaran oo soo dhaweynayay oo lagu qabtay fagaaraha khayriyada jaamacadda Timacadda ee magaalada Gebilay oo isku soo baxeen kumanaan qof oo dadweynaha reer Gebilay isla markaasina ay kala hadlayeen mas'uuliyiinta wasiirada iyo heer gobol ayaa gooreenba waxa hadal soo dhaweynaya halkaasi ka jeediyay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka Soomaaliland mudane Habiib Diiriya Nuur oo sheegay guud ahaan maanta u soo dhaweynayaan aqoonyahan Professor Axmed Ismaaciil Samatar magaalada Gebilay wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri runtii waa goor quruxda aad u kuushay socod badan iyo taag badan oo soo maray waxaan ku maanta waxaan ku qiyaasan inta magaalada runtii Axmed Ismaaciil Samatar sida hore la idinku sheegay wuxuu ahaa degmada halkan waa deegaankiisii dalkiisii iyo dadkiisii u yimid waxaan leenahay soo dhawow idinkoo reer Gebilay runtii uu abtirsaday maanta idina waa abtirsan aad iyo baan idinku baryeelnaa maamulka jaamacadda Timacadda oo horkacaya diinka kuliyadda jaamacadda Timacadda Maxamuud iyo maamulka ku-xigeenka jaamacadda Timacadda Cabdilaahi Nuur Cige ayaa iyagu si diiran iyagoo ku hadlaya afka jaamacadda Timacadda si diiran u soo dhaweeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar isla markaasina ballan qaaday inay ka maamulaan jaamacadda Timacadda ku soo dhaweynayaan Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay inuu aad u soo dhaweynayo isla markaasina uu magaalada Gebilay ku soo dhaweynayo Axmed Ismaaciil Samatar oo kamid ah aqoonyahanada reer Soomaaliland barasaabka gobolka Gebilay Ibrahim Yuusuf Keeti iyo maayarka magaalada Gebilay maayar Shacayb Maxamed Muuse oo hadal kooban halkaasina iyagu ka jeediyay ayaa sheegay inay u mahadnaqayaan dadweynaha reer Gebilay ee soo dhaweeyay aqoonyahankani maanta ku soo laabtay dalka iyagoo ka maamulaana sheegay inay soo dhaweynayaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar aqoonyahan Boobe Yuusuf Tucaale oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa isna sidoo kale tilmaamay ahmiyadda ay leedahay soo dhaweynka Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ku tilmaamay mid maanta guula isla markaasina uu sheegay inay ka dhul sugayaan raada kaga aadan Professor Axmed Ismaaciil Samatar marka uu ku noqdo qurbaha taasoo ku tilmaamay inuu Soomaaliland ka oran doono hadal u qalanta gabagabadii Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo kumanaan qof kala hadlaya barxadda jaamacadda Timacadda ee magaalada Gebilay ayaa isagoo qiiraysan waxa uu sheegay in guud ahaanba uu mahadnaqayo shacbigii maanta sida diiran u soo dhaweeyay iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee heer wasiir iyo heer gobol ee maanta ku soo dhaweeyay Soomaaliland taasoo uu sheegay in guud ahaanba dadweynaha reer Gebilay si gaar ah ugu mahadnaqayo soo dhaweynta diiran ee uu sameeyeen Professor Axmed Ismaaciil Samatar hadaladiisii waxa kamid ahaa aniga waxa dabeecadii markaan dhulkan imaado
والمسرع لغوصه ويو وعدا لغا هيا ومهلا ودادو وحان عيدكوها وشوري نفسها الله انتاقا وحي هيكسلا هاي ما انت سنع لصوت بحرين القيسة كبدي والخدة لسن المقالة الدوحية المسومة اللي نتكي أي بوحسنين مرضى من بقول سنة المقالة دي قاربة كلمة يسار وانت هو تعاد يا ضمنا تطلين سنة أبو الصوت بحرين